حرتي بين حبدين أيان بعد البات حرتي بحبدين أيان حرتي بعد البات حرتي بحبدين أيان بعد البات حرتي بحبدين أيان بعد البات حرتي بحبدين أيان بعد موجودك ما حنا كم عيشي شيء قلال وي قلال kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada kalmoy media sidoo kale wararkii ugu dambeeyay xaaladda gobolka Sanaag ciidamada maamulka Somaliland oo weerar ku qaaday farisimo ay lahaayeen ciidamada difaaca deegaanka sidoo kalena waxa ay weerareen dad xoolo dhaqato ah oo reer miyi ah waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay weerarka Somaliland ciidankeeda ay ku qaadeen inta u dhaxaysa deegaanka shidan iyo sidoo kale magaalada Cerigabo waxaan kula wadaagi doonaa dhinaca kale maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo digniin ka soo saaray maxaabiista ku xiran magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka gooni-goosodka ah ee Somaliland waxay tahay digniintaasi maxaa waqtigan ku soo beegay mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan Xasan Cali Qeyrri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo deganaa agagaarka Hotel Jazeera oo ciidamo la duldhigay yaa duldhigay ciidankaasi maxaa ka soconaya halka ay degan yihiin Qeyrri iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur faafahinta ayaan kugula wadaagi doonaa soo dhawow daawada muuqaalkan like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo sida aad u aragto xagaag sida aad la socotaanba maalmihii ugu dambeeyay waxaa socday dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo gobolka Sanaag iyo sidoo kale Sool ka socday oo ay wadeen ciidamada maamulka gooni-goosodka ah ee Somaliland ciidanka maamulka waqooyi bari Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada difaaca deegaanka ee ku sugnaashida sida wararka ay nagu soo gaarayaan ciidamada difaaca deegaanka ayaa waxa ay markaasi ku guuleysteen in gabi ahaanba ay maanta ka hortagaan weerar ay ciidamada maamulka Somaliland ku soo qaadeen deegaanka lagu magacaabo shidan iyo sidoo kale magaalada Cerigabo inta u dhaxayso wararku waxa ay sheegayaan in ciidamada maamulka Somaliland ay doonayeen in dad reer miyi ah oo xoolo dhaqato oo halkaasi ku noolaa ay xoolaha ka dhacaan iyagana markaasi maxaabiis ahaan ay u kaxeystaan laakiin ciidanka difaaca deegaanka oo xogtaasi helay ayaa ku baxay waxaana halkaasi ka dhacay iska horimaad khasaare xooggan lagu gaarsiiyay ciidamada maamulka Somaliland iyadoona markaasi jab xooggan uu soo gaaray ciidankii ka soo duulay dhinaca magaalada Cerigabo ee maamulka gooni-goosodka ah ee Somaliland wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in ciidamada difaaca deegaanka ay gacanta ku dhigeen laba gaari oo cabdibilaah oo ay wateen ciidamada maamulka gooni-goosodka ah ee Somaliland halka sidoo kalena ay ka qabteen laba askari oo ciidamadaasi la socday kuwaas oo dhaawac ahaan markaasi ay uga carareen maadaama ay qaadi waayeen weerar adagna markaasi ay la kulmeen ciidamada maamulka Somaliland ayaa dib ugu laabtay magaalada Cerigabo waxaana xogaha ay sheegayaan inay qorsheynayaan in mar kale weerar rogaal celinaha ay ku soo qaadaan fariisimihii saaka markaasi looga hortagay oo ciidamada difaaca deegaanka hadda markaasi ay saldhig ka dhigteen difaacyo adagna ay ka qoteen waxaa gurmad xooggan oo ka baxay deegaanada waqooyi shidan iyo sidoo kale Yube ay weli ku qulqulayaan goobihii uu iska horimaadka ka dhacay maanta oo ciidanka difaaca deegaanka ay jabka xooggan ku gaarsiiyeen maleeshiyaadkii ka soo duulay dhinaca Somaliland weli xiisad xooggan ayaa ka taagan deegaanada shidan waqooyi iyo sidoo kale Yubena waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xooggan magaalada Cerigabo iyo deegaanka shidan oo saaka inta u dhaxaysa uu dagaal ka qarxayna waxaa laga soo warinayaa in xiisad aad u xooggan ay hadda markaasi ka taagan tahay dhinaca kale waxaa la markaasi magaalada Laascaanood ee xarunta waqooyi bari Soomaaliya wararka naga soo gaaray ay sheegayaan in maamulka waqooyi bari Soomaaliya uu soo saaray amar culus oo ka dhana maxaabiista ku xiran magaalada Hargeysa ee maamulka gooni-goosodka gacanta ugu jirta maamulka waqooyi bari Soomaaliya waxa uu sheegay in maxaabiista ku xiran magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka gooni-goosodka ah ay la kulmayaan tacadiye haddii ay sii socdaan tacadiyadaasina ay markaasi iyaguna qaadi doonaan tallaabooyin adag oo ka dhan ah maxaabiista ay gacanta ku hayaan waxaa maamulka waqooyi bari Soomaaliya gaar ahaan wasiirka amniga maamulkaasi uu sheegay isaga oo ku sugan gobolka Sanaag maamulka gooni-goosodka ah ee waqooyi galbeed waan la soconnaa dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale tacadiyada uu ku hayo maxaabiista inta ay hayaan maxaabiis 10 laab ka badan ayaan gacanta ku haynaa haddii maamulka gooni-goosodka ah uu joojin waayo falalkaasi waxaan qaadi doonaa ayuu yiri tallaabooyin ka dhan ah maxaabiista markaasi gacanta inooga jira waxa muuqata in maamulka waqooyi bari Soomaaliya hadda uu dareemay dhibaatooyinka iyo tacadiyada ay la kulmayaan
maxaabiista gacanta ugu jira maamulka Somaliland waxaana sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin argoosi ah haddii Somaliland ay joojin weyso tacadiyadaasi. dhowaan ehelada markaasi maxaabiista Somaliland gacanta ugu jira oo laascanood ka hadlay ayaa sheegay in eheladooda maxaabiista waa Somaliland ay dhibaatooyin iyo tacadiyo la kulmaan waqooyi barina waxay ka dalbadeen in si degdeg ah looga howlgalo soo deynta maxaabiistaasi maadaama muddo dheer ay gacanta ugu jiraan maamulka gooni goosadka ee Somaliland. وحقاق hadii halkaasi kaga nimaano waqooyi bari sidoo kale xiisada ka soo korodhay dhinaca gobolka Sanaag markana magaalada Muqdisho. wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho gaar ahaan halka ay degan yihiin xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Xasan Cali Kheyre ay ka mid yihiin isla markaana hoygooda uu yahay nawaaxiga Hotel Jazeera waxa la soo warinayaa in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya qaybahooda kala duwan sida ciidamada Harmacad, Booliis Militaro, ciidamada booliiska iyo sidoo kale ciidanka Gorgor iyo Danab la dulgeeyay isla markaana difaacyo ay ka sameysteen halka ay degan yihiin ama ay markaasi hoyga u ah xubnaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale Xasan Cali Kheyre. waxa la soo warinayaa in ciidamada halkaasi tagay gabi ahaanba ay ku amreen iskuulada iyo sidoo kale madaarista halkaasi ku taala in ardayda la fasaxo guryahoodana loo kala diro waxaana gabi ahaanba ay hakiyeen dhaqdhaqaaqyada gaadiidka iyo dadka iyagoo baaritaano markaasi ka wada guryaha xaafadaha markaasi ka agdhow halka ay degan yihiin Xasan Cali Kheyre iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. xogaha aynu helayno waxay sheegayaan in qorshaha uu yahay baaritaanada xaafadahaasi ay ka sameynayaan sida ay u socdaan in ay ku geeyaan guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale Xasan Cali Kheyre isla markaana lagu yiraahdo waxa idin soo gaaray howlgal baaritaano oo amniga lagu xaqiijinayo waana in la baaraa gurihiina. laakiin Kheyre iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa feejignaan aad u sareysa galay iyaga oo ciidamo kala duwan oo gurmad ah durbo markaasi ay gaareen ciidankii dowladda ee halkaasi geysay ayaana lagu soo waramayaa in ay difaacyo qoteen dabaqyadana ay koreen qoryaha markaasi baasuukaha loo yaqaan ee garabka laga tuuro dhashiikayaal iyo sidoo kale dabajaxyana ay saarteen aagagii ay markaasi frismaha ka dhigteen ama ay degeen xilli markaasi xiisad aad u xoogan laga soo warinayo goobaha ay ku sugan yihiin ciidankaasi iyo ciidamada ilaalada waa hogaamiyaasha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale Xasan Cali Kheyre. xiisada magaalada Muqdisho ayaa u muuqatay marba marka ka dambeysay cirkiis ku sii shareeraysa iyadoo xaalad cakirnaanaha markaasi laga soo sheegayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo maalmo ka hor markaasi dagaal uu ku dhaxmaray ciidamo taabacsan garabyada Shariif Sheekh Axmed, Xasan Cali Kheyre iyo sidoo kale ciidamo daacad u ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Xasan Sheekh Maxamuud. guud ahaanba xaaladda Muqdisho wixii ka soo kordha wararka iyo warbixinadeena dambe ayaad ku daawan doontaa muuqaalka like share aragtidaadana qaybta faallada ee commentiga ku dhiba haddii aad horey ula joogtay waad ku mahadsan tahay haddii aad nala joogina nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada aynu mar kasta halkan kula wadaagno wararka iyo warbixinada guud ahaan Soomaalida iyo sidoo kale caalamka.